وسو دوينتا اكس xildhibaan maxamed cabdullaahi fadhayo maxamed cabdullaahi fadhayo reer galdogob maanta waxa ay muujiyeen shacbiyada uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay waxa u soo banbaxay dad badan oo aan ka qayb galin soo dhaweyno tan ka horeeyay waxay kulmisay abwaanin aqoon-yahano saraakiil ciidan oo hore iyo waliba mas'uuliyiin kale iyo odayaal waxgaradka deegaanka kamid ah oo arrimahan aad aan ula falgal jirin kuwaas oo u sababeynaya in maxamed cabdullaahi uu yahay mas'uul xilligii uu shaqayn jiray wax badan deegaanka u qabtay waxyaabaha kale oo intii soo dhaweyntani ay socotay odayaashu ay la faqureen ama ay soo bandhigeen waxa kamid ahaa in maxamed cabdullaahi aanu wadan baasaboorka waddanka looga dhoofo iyo midka qofka dhoofay uu dib ugu soo noqdo waddanka macnaheeduna yahay in maxamed cabdullaahi uusan dalka dibaddiisa ka imaan ee uu joogay galdogob iyo gobolka mudug Puntland wixii soo maray wixii horay u dhacay iyo wacyigu sidii uu ahaa inuu bulshada la wadaagayay iyadoo taas la soo bandhigay ayuu isaguna uga mahadceliyay qaybaha kala duwan ee bulshada inuu ku faraxsan yahay in dalkiisii iyo deegaan doorashadiisii dib loogu soo dhaweynayo dibna la isku waraysan doono wax badan wixii uu galdogob u waday iyo markaasi tartan in la gali doono isla markaana haddii isaga la doorto iyo haddii cid kale la doortoba uu ku qanacsan yahay soo dhaweynta maanta dhacday waxay ahayd mid ay aad ugu riyaaqsan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshadu marka waa abwaandhaga dheere waxaad jooga maanta ninkaan xildhibaankan soo dhaweynaynaa waxaana jooga maamulkii degmada xogayihii baa jooga guddoomiyihii degmada jooga kulli looma kala maqna odayaashii baa jooga waxgaradkii baa jooga annaga qodayada reer Puntland waxa naga go'an ilaa xafuur rag baan u xilsaarnay inay socdaan oo dad macna leh oo constitutionada dalka wax ka hagaajiya meesha ay ka soo jeedaanna wax ka tala iyo gobolkooda iyo dadkooda iyo deegaamadooda dalkana wax ka hagaajiya inaan dirsano ninkaan meesha ku soo dhaweynayna qofka koowaad buu noo yahay xildhibaanka maxamed cabdullaahi xasan cali yuusuf axmed cali xirsi mobay waxaan ku soo dhaweynayaa si u qurux badnayd baan ku soo dhaweynaya waxa weeye xildhibaanku waa xildhibaanadii hore wey maaha xildhibaan jadiid oo hadda yimid maha waa loo baahday aad iyo aad baan ugu baahanay soo dhaweyntiisuna waxa weeye baahidaan u qabnay dadka jira waad arkaysa waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanada meeshaad yaadaa leh adiga kugu ognahay awalan waxaan u mahadcelinayaa bulshooyinka meeshay soo hortimid gudoomiyaha degmada Galdogob xogayaha odayaasha ciidamada musharaxa ku soo dhaweeyay musharax maxamed cabdullaahi xasan degmada Galdogob ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmad khayr qaba ilaahay raxmad khayr qaba nasiih ilaahay Soomaaliya oo mantahay oo meel walba abaar baa ka jira ilaahay raxmad nasiih intaas waa in daneed maxamed cabdullaahi xasan ninkii garanaya dadka halkan jooga marxaladihii badnaa oo ay soo madhay deegaankan reer Galdogob ilaa 88 ilaa 82 ilaa 91 ilaa 95 2000 nin dibad ka yimid ma ahayn nin baasaboor la maaha ninkii garanaya dadkii dambe hadda dib waddanka ka yimid oo dadka cusub ma yaqaanaan dadka iyaga hore ay yaqaanaa maxamed cabdullaahi xasan dadkii Galdogob waxa weeye wax walba u soo qaftay marxalad walbana u soo maray waxaan markaa ku dooranaya ku taageeraya qabna waa leeyahay oo waa nin qab leh waana nin qowl leh ninka raggaana qabka iyo qowlka waa lagu raacaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتك وكل يهاي ضدك وكل هذا أرويه هرب على الصوب حي إلى حل جوال التاجدا بركة كواد وركة على صوب قابي لما واحد السلام يا أمة ماشي سكوت بيد أو تبيد سودويت حل بالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب حل دمار سودو محمد عبد الله حسن علي سودو واحد وتين دكاجي waxa u timi soo dhaweynta ummadaada inta maanta aad ciidanka ku taagto ku soo dhaweys waa xildhibaankii ugu doorashadii saddexaad xildhibaankii qaatay kursiga weeye waxa weeye maanta waa kugu soo dhaweynaynaa waa kugu taageeraynaa waa kugu soo galbinaynaa waa kugu dooranaynaa waxaa hadalka ku soo ururinayaa soo dhawow xildhibaane soo dhawow ahayo maxamed maariya magaca shanada iskale oo mayalada yeela mar lahaabadna soo dhawow waxa mayalada
yeela mar lahaabaan soo dhow ka duwan isugu timid waxaan ku soo dhaweeynaa xildhibaan fadhiyo soo dhawow ku soo dhawow deegaankaagii ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow gurigaagii hooyo waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waa ku sugaynay sida loo sheegayba waxa weeye talaan lahayn tala lagu ku sugaayay baa jirta sida abwaanka uu sheegay markii hore wuxuu yidhi xildhibaanada maanta reer tanade talaan ka leenahay dad guddiyaha jira dadka aan soo xulay baad ka mid tahay oo lambar 1 noo ah ku soo dhawow deegaankaagii waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad mar labaad soo laaban doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Rasuulullaahi wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin. musharax xildhibaan maxamed cabdullaahi xubnaha golaha deegaanka odayaasha saraakiisha dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Galdogob waa salaamayaa soo dhantihiin salaanka bacdi aad iyo aad waxaan mar kale uga mahadcelinayaa bulshada reer Galdogob ee xadaariga ah ee jecel soo dhaweynta mudanayaashooda iyo martidooda oo mar walba xilligan kulul oo kale u soo baxa inay soo dhaweeyaan aad iyo aad baan shacabkayga uga mahadcelinayaa arrintaas waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin mar labaad munaasabadan soo dhaweynta ah oo aan ku soo dhaweynayno walaalkeen musharax xildhibaan hore maxamed cabdullaahi xasan Mastar Fadhiye waxaan leenahay musharax soo dhawow ku soo dhawow Puntland ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow dadkaagii iyo deegaankaagii علمنا منهم ما جهلنا دمان بلشوين تغيير قلدوغو غير بنتولان منصب كستا إيا مقع كستا أو يكون شوغان حفلات داي كغسو قيب كلين يقول سو دوين تيدا إرود كلين كاس أصوب بحين تن إيا مانتا أي أتاقنايين قيبها كلا دوان إي بلشدا hogaaminayo maamulkii degmada odagoodii gudoomiyahoodii Cabdiqafaar Sheekh Ibraahim iyo xogayihiisii iyo laamihiisii dawladda ciidanka kala duwan ee dawladda odayaal dhaqameedka abwaanada ardada dhalinyarada haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacda salaam waa karaamayseen waa sharafteen way soo dhaweyseen sidaas oo kale aan ilaahay inay kaga baryahay inuu karaameeyo inta ka bacdi kulayl iyo cirid baanu joognaa tan iyo saakana waa joogteen ilaahay jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay inay kaga abaal mariyo kulayl baan joognaa ilaahay qabow noogu bedelo inta ka bacdi sida odayaashii iyo maamulkii iyo bulshadii soo baxday ay u sheegeen musharaxaas aad ku dhawaaqdeen baan anoon sheegan adinku aad sheegteen kursiga 191 waa loo tartamayaa tolkoo dhan baa iska leh rag iyo dumarba qof ka mid ah baan ahay oo u soo banbaxay oo u soo diyaar garoobay haddii ilaahay intaa markaan ka gudbo aniga oo wararkeennii iyo hadalladeennii iyo waxaannu is oran lahayn iyo xafladaheenni inoo dambeeyaan maanta aan ciridaan joogno ilaahayna aan roob ku weydiisanayno waxaan ku soo gabagabaynayaa khudbooyinka iyo shirarka iyo fadhigu waa badanayaa sidaad ii karaamayseen allah inii karaameeyo waana inay ka gudoomay sidaad mas'uuliyadda aad diyaar ugu tihiin inay igu dhiibataan anna aan inay kugu hogaamiyo Iimaan Maxamed Gaani Soma Media Galdogob